bal aan eegno dhacdo kale oo dhacday xilligii rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam. waxaa jirtay qof dumar ahayd oo lagu magacaabi jiray qawlah bintu saclaba. waxaa guursaday nin la odhan jiray aws ibnu thaamit. labadooduna waxay ahaayeen asxaabi. aws waxa uu la dhashay saxaabiga kale oo cubaadah ibnu thaamit, allah ka raali noqdee. haddaba maxaa ku dhacay qofkaasi dumarka ahayd? waxay noqotay qof da'ah oo aan waxba qabsan karin. waxaa maalin maalmaha ka mid ah ninkeedii ku yidhi, qawlah, waxaad igala mid tahay hooyaday oo kale oo kuuma galmoon doono maanta wixii ka dambeeya ee raalli iga noqo. markaasuu ka tegey. markii uu ka tegey oo bannaanka uu ku maqnaa oo asxaabtiisii la soo sheekaystay ayuu ku soo laabtay gurigii. saa wuxuu arkay xaaskiisii oo meel fadhida. wuxuu damcay inuu la galmoodo. gacanta ayuu u soo taagay. waxay ku tidhi, maya maya maya, ma dhici karto arrintaasi. ma og tahay waxaa haddaayay igu tidhi? waxaad tidhi waxaad ila mid tahay hooyaday oo kale. ma xasuusataa waxaad tidhi? maxaad ula jeedday sheekada noocaasi oo kale ah? waxay tidhi, raalli iga noqo, waxaan u tegayaa rasuulka alle muxamed sala allahu calayhi wasallam. maalin walba waxaad igu tidhaahdaa erayo qalbigayga dhibaya. ma og tahay inaan ahay qof duqoobay oo da' ah? wixii hadda ka dambeeya ma awoodi inaan carruur dhalo. ma og tahay in xilligii dhallinyarada aan ahaa oo quruxda badnaa aan adiga kula soo qaatay wakhtigayga oo dhan? carruur ayaan kuu dhalay. carruurta aan dhalay dhan adiga ayaan kuu dhalay. haddaba markaan sidaasi noqday ayaad waxaad leedahay hadallo aanan mudnayn inaad igu tidhaahdo, adeero raalli ahaw, waxaan u tegayaa rasuulka alle muxamed sala allahu calayhi wasallam. sidaasi darteed kuuma oggolaanayo inaad jidhkayga taabato ilaa alla subxaanahu wa tacaala gartayni kala xukumo. xaqiiqdii sheekada noocaasi oo kaleha maanta ayaan ku dhaqannaa. maxaa yeelay xaasaskeenni markay ay isbeddelaan ama jidhkoodu isbeddelo ayaa waxaan ku nidhaahnaa kuuma galmoon karo, kuuma soo dhowaan karo, halkaa iga taagnaaw, ama xaas kale ayaan guursanayaa ee nabaday, ama markii jidhkeedii wax ku dhaco. subxaana allah. markaasii qowla waxay u timid nebi muxamed sala allahu calayhi wasallam oo waxay ku tidhi, rasuulkii allow, waxaan u ashtakoonayaa oo u dacwoonayaa allaah. waxaan doonayaa inaan xaaladdayda allah kaliya gaarsiiyo. waxaan ahaa gabar yar oo aad u qurux badan. jidhkaygu wuxuu ahaa mid aad u dhisan. waxaad og tahay rasuulkii allow inuu i guursaday sawjkayga aws binu thaamit. waxaadna og tahay inuu yahay ina adeerkay. waxaan u dhalay carruur badan. waxaad aragtaa sida aan u ekahay maanta. waan duqoobay. wuxuuna maalin walbaa igula hadlaa hadallo aan qurux badnayn oo gaf ii ah. maantana siduu u joogay wuxuu ii keenay inuu igu yidhaahdo, waxaad igala mid tahay hooyaday oo kale oo yaanan isku soo dhowaanin. wuxuuna ku soo laabtay guriga si uu jidhkayga u taabto oo aan ula seexdo isaga. waana ka soo diiday oo ku idhi, maya, waxaan u tegayaa rasuulka alle muxamed sala allahu calayhi wasallam. waxaan rabaa in arrintaasi alla weyne aan uga ashtakoodo, yacni dacwadayda allah oo keliya u gudbiyo. markaasuu rasuulkii alle xaggeedii qawlah soo eegay oo ku yidhi, qawlah, aws waa ninkaagii, waa ina adeerkaagii. hadalkaasi uu kugu yidhi isaga sabar. waa qof duqoobay. sidaasi ha ugu tegin oo ha ugu dheeraanin. orduu kac isaga laabo oo ha u bixin wuxuu kugu yidhaahdo hadal xun ah. markaasi waa ay kacday oo meeshaydii ka dhaqaaqday iyadoo ku qanacday hadalkii rasuulka alle sala allahu calayhi wasallam. maxaa yeelay ku caasiyidda hadalka rasuulka alle waa dhumid oo aad ka dhuntay jidka alle. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. uma habboona qofka mu'minka ah lab ama dhidig markii alle iyo rasuulkiisii arrin ay gooyaan in ay iyagu yeeshaan ikhyaar taladooda ah. ee haddaba kiinii kastoo caasiya alle iyo rasuulkiisii muxamed sala allahu calayhi wasallam wuxuu dhab ahaantii dhumay dhumid cad. qawlah way isaga dhaqaaqday halkii. waxay tidhi, aniga qofkaan u dacwooday oo gartayda aan u dhigtay waxay ahayd allaah gartayna inuu kala saaro, oo waan rajaynayaa in shaa allah. cajiib. saa markii ay sidaasi ugu sii dhaqaaqday waxaa si degdeg ah ugu yimid malakul jibriil rasuulka alle sala allahu calayhi wasallam oo waxyi u wada. caaishana waxay tidhi, waxaan ku jiray qolkaygii oo waxaama durbaba maqlay rasuulkii alle oo qur'aan kor ugu aqrinaya. waana gartay inuu markii uu rasuulka alle sala allahu calayhi wasallam aayaddii dhammeeyey waxaa dib ugu soo laabatay qawlah bintu thaclaba oo indhaheedii oohin ay ka qubanayaan.
oo garkeedii dhan qabsaday waxay tidhi aniga alla weyne ayaan u ashtakooday oo dacwadayda u gudbiyey alla weyne subxaanahu wa tacaalaana dacwadaydii wa uu maqlay oo qur'aan ayuu ka soo dejiyey maxaa yeelay alla weyne wuxuu yidhi waxaan maqlayaa dacwada qofkaasi dumarka ah markaasuu alla weyne u sheegay rasuulka alle moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu maqlay qofkaasi dumarka ahayd dacwadeedii قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير dhabtii allaah waa uu maqlay hadalkeedii qowlah bintu athaclabah ee kaagala doodaysay moxamedow sala allahu calayhi wasallam arrinkii ninkeeda aws binu assaamit ee u dacwootay allaah oo alle waa uu maqlaa doodda dhexdiinna idinka xaqiiqdii allaah waa maqal badane oo arag badan yaa allah arrinta noocaasi oo kale maxaan maanta ku dhaqannaa qof quruxdeedii agteenna ku lumisay inaan ku dhahno eeddo meesha ka tag iska joog gurigaagii oo hooyaday ayaad ila mid tahay subxaanah waa arrin alla weyne uu inaga diiday yar iyo weyn taasina waxay la mid tahay markii xaaskaagii ay wax soo gaaraan ama jidhkeedii isbeddelo ama lugta ka go'do ama gacanta ka go'do oo aan markaasi dhibkaasi darteed ugu cararno subxaana allah aladiina yadahharuuna minkum min nisaa'ihim maa hunna أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور kuwa idinka mid ah ee isaga yeela xaasaskooda xaaraanta habka addihaar ayagoo ku odhanaya waxaad igala mid tahay sida dhabarka hooyaday ma noqon karaan hooyooyinkooda oo cidina ma noqon karto hooyooyinkood oo aan ka ahayn kuwa iyaga dhalay oo xaqiiqdii waxay ku dhawaaqeen hadal xun oo munkar ah iyo been ah oo xaqiiqdii allaah waa cafis badane oo dembidhaaf badan saa markii ay aayaddaasi dhammaatay wuxuu alla weyne amray aws binu thaamit in xaaskiisii uusan u galmoon karin ilaa uu ka magdhabo ama ka bixiyo wuxuu alla weyne ku xukumay isaga oo dhegayso wuxuu alla weyne ku xukumay والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير oo kuwa isaga yeela xaaraan aafooyinkooda habka dihaar oo raba inay ka xoreeyaan nafahooda wixii ay ku dhawaaqeen ee eedsiinta ahayd arrinkaa iyo waxa laga rabo si ay afadiisa ugu xalaalowdo waa xorayn addoon inta aysan istaabanin isagay afadiisa taasina waa darsan iyo waano si aydan ugu laabanin waxaasi oo xun oo kale oo alleh waa uu ka warqabaa waxa aad fashaan rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi qowlah zawjkaagii waa inuu xoreeyaa addoon waxayna ku tidhi qowlah rasuulkii allow waxaad og tahay in ninkaygii uusan haysan wax addoon ah ama wax hanti ah sidee ayuu u bixiyaa markaasuu alla weyne xukun kale ku soo dejiyey rasuulkiisii moxamed sala allahu calayhi wasallam فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا oo kii isaga aanan helin lacag uu ku bixiyo xorayn addoon waa in uu soomaa 2 bilood oo xiriir ah ka hor inta aysan istaabanin yacnii isku tegin isaga iyo afadiisa qowlah aad bay u yaabtay oo waxay tidhi rasuulkii allow waxaad og tahay inuu yahay qof da'ah ma soomi karo ninkaygii 2 bilood oo isxigta xitaa maalin ma soomi karo markaasuu xukunka ka khafiifiyey alla weyne subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم oo xagga kii isaga aanan awoodin inuu falaa sidaasi yacni waa inuu soomaa 2 bilood oo xiriir ah da ama cudur ama sabab kale oo sharci ah awgeed waa inuu quudiyaa 60 ka mid ah masaakiinta sidaasi waa si aad ugu yeelataan iimaan dhanka alle iyo rasuulkiisa kuwa kanina waa xuduudaha uu dhigay Allah oo qaybta gaalada waxay ahaan doontaa cadaab xanuun badan waxay haddana qofkii dumarka ahayd ku tiri rasuulkii allow wuxuu haysta ma laha oo innagaaba maalin qadna maalinna wax cunna intee wax ka keenayna markaasuu rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam ku yidhi qowlah raashinkaani qaado oo waxay quudin kartaa 30 qafood waxayna iyadan sii raacisay waxaan anigana heli karaa raashin kale oo quudin kara ilaa ay 30 qafood sidaasna waxay ku noqonaysaa 60 qafood rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam iyo qowlah waxay markaasi xaliyeen dhibkii taagnaa maalintaasi wixii ka dambeeyey waxaa la sheegaa in saxaabigii aws binu saamit inuu aad u dhaqan jiray xaaskiisa intaasi kadib markii ay muddo ka soo wareegtay waxaa maalin dhacday cumar bin khadaab oo ciidan xooggan hogaaminaya ayaa xilligiisii wuxuu istaajiyey ciidankiisii oo dhammaa maxaa yeelay wuxuu arkay qof dumar ah oo da' ahayd oo gacanta u haatinaysa oo ku leh istaag intaasi kadib cumar durbabu wuxuu u dhaqaaqay inuu istaajiyo ciidankiisii xoogganaa oo tirada badnaa hal mar ayuu amray inay dhaqaaqin oo istaagaan oo qof walba meeshiisa istaago wuxuu ka soo degay faraskiisii ama geelii uu saarnaa markaasi wuxuuna u yimid qofkii dumarka ahayd isagoo u dhoola caddaynaya ayada madaxana u laxaya wuxuu u xaliyey dhibkii haystay markaasuu ciidankiisii ku soo laabtay oo ku yidhi ciidankiisii ina sii kaxeeya aan sii soconay markii ay dhexda socdeen qaar ka mid ahaa asxaabtii ama raggii la socday ayaa waxay ku yidhaahdeen yaa amiiruulmu'miniin kuma ayay ahayd qofkaasi dumarka ah oo aad ciidankeennii dhan oo sidaasi u xoogganaa aad darteed u istaajisay cumar allah ka raali noqday markii uu hadalkaasi maqlay wuxuu ku soo jeestay ciidankiisii oo haddana istaajiyey oo ku yidhi istaaga ma doonaysaan inaan idiin sheego qofkii ay ahayd qofkaasi dumarka ah oo aan darteed u istaagnay kol dhoweyd qofkaasi waxay ahayd qofkii dumarka ahayd uu allo weyne maqlay idinkana waxaad doonaysaan inaan iyadaasi maqlin waxay gacanteeda kor ugu qaaday inaan istaago waxaana waajib igu ahayd inaan istaago oo aan halkaasi ka dhaqaaqin qofkaasi allo weyne ayaa hadalkeedii dacwada ahaa maqlay oo xukun ka soo dejiyey haddaba qofkaasi magaceeda waxaa la yidhaahdaa qawlah bintu thaclaba qofkaasi waa qof jibriil si degdeg ah rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam ku amray inuu soo celiyo iyada una sheego inuu allo weyne maqlay dacwadeeda haddaba waxaan idiin sheegayaa qofkaasi hadday hal mar istaajiso iska dhaafee 1000 jeer hadday istaajiso waan istaagayaa oo hadalkeedii waan maqlayaa haddaba waxaan allo weyne dhammaanteen inoogu rajaynayaa inaan fahanno macnaha qur-aanka iyo awoodda qur-aanka allow xaasaskeenii qalbiyadeenna u jilci allow qalbiyadeenna u suubi oo wanaag iyo sinaan aan kula dhaqanno ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعل